Suugaan ahaan, sida aynu wada ogsoonnahay ama aynu hore u soo dhiganay, ereyga suugaan waxa uu ku aroorayaa afgooyadii hore isaga oo lahaa macnayaal kala duwan. Waxa uu soo maray heerar kala gedisan, siyaabo badan baana loo adeegsan jiray. Midowga dhirta ku sii hadha xilliga ay sii kala hamaan qaadanayaan xilliyada gu'ga iyo jiilaalka ayaa loo yaqaanay suugaan. Dhulka carrada furan leh ee biyaha hoos u galaan bilowga xilliga roobka bilowga yahay, meesha ay raysku ka fogaato marka sahanka laga soo helo ayaa la odhan jiray suugaan. Hadalka kunuuska ah ama hanshaashaqa ah ee aan kala caddayn ayaa la odhan jiray suugaan. Maahmaah baa ahayd: saddex maaha suugaani, hadal maaha, hilib soorye maaha, doqoni sokeeye maaha, neecawda udgoon ee roobka hortii, dabada saxansaxada udgoon ee sanka lala raaco ayaa la odhan jiray suugaan. Mar kale, haanka ama dufanka ka baxa lafaha ijinka ah oo aad u waxtar badan, sahayna loo qaadan jiray, muqmataana ama shabdhanqa lagu cuni jiray ayaa loo yaqaanay suugaan. Waxaa kale oo jira waxyaabo intaas ka fara badan oo loo yaqaan ereyga suugaan deegaanada qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, ereyga suugaan waayadii dambe waxa uu noqday erey aqooneed magac guud oo noqday hawraarta hadalka ay qaybta murtida ahaan uga soo heer sarreyso. Suugaantu waxa ay u qaybsan tahay tix iyo tiraab. Tixdu waxa ay leedahay xaraf-raac, hab-dhac iyo miisaan u gaar ah. Hab-raaca waa ereyga ay saldhigga u ah ee ay ka socoto ama soo noqnoqdo. Miisaanka iyo hab-dhacuna waa badi-sooc iyo dhacda ay tix waliba u gaar leedahay. Saaxiibayaal, haddii aad halkan soo gaadhay muuqaalka, like, naguna soo biir si aad noo dhiirigeliso.